aynu maanta u wada joogno in la hirgeliyey xog lagu kaydiyo qofka meeshan imanaya xogtiisa farihiisa iyo wajigiisa qofku siyaabo kala duwan buu iman karaa yani marka laga hadlayo kaydinta xogta lagama hadlayo dambiile waxa weeye waa darajada ugu dambaysa ee la gaaro qofna dambiile ma noqdo ilaa uu xukun maxkamadeed oo kama dambays ah uu ku dhaco xukun maxkamadeed oo kama dambaysana waxaa looga jeedaa marka uu xukunku dhaqan galo darajada doono ee maxkamadeed ha ku dhaqan galo ama darajada koowaad ha ku dhaqan galo ama ha gaadha maxkamadda sare ee diiwaangisu ha gaadhay markaasuu dambiile noqdo yani markaas waxaa looga faa'iidaysanaya waxa weeye waa dambiilaha waa eedaysanaha waa qof kasta oo halkan adeeg u soo doonta sidoo kale annaga ka garsoor ahaan muhiimad gaara way noqdeen hay-adaha garsoorka iyo booliiska iyo hay-ada kala duwan waxaa la isku leeyahay hay-adaha cadaaladda gaar ahaan waxay muhiimad gaara u leedahay nidaamka cadaaladeed ee dembiyada la xidhiidha yacni cadaalad waxaa soo gelaya waa maxkamadihii xeraalintii ciidamadii booliiska xabsiyadii hay-ado kala duwan oo ballaaran marka hawshan marka waxay nooga baahan tahay in la sii ballaariyo oo la hirgeliyo system isku wada xidhan oo hanaanka cadaaladeed ee dalka iyo gaar ahaan hay-adaha maaliyadeed kuwa dawliga iyo kuwaan dawliga ahayn baa isku xidhay hadda garsoorku waxa uu leeyahay system noocan oo kale ah oo la yidhaahdo hanaanka maaraynta dacwadaha electroniga laakiin wuxuu ku kooban yahay maxkamaduhuna waa gaar xeraalintuna waa gaar hadda booliiska CID waa gaar wasaaradda maaliyaddu gaar bay u leedahay bangiyadu gaar bay u leeyihiin intaasina ma kala maarin karayaan dhammaantood waa isku xidhay waxaa laga rabaa xukunka maxkamadda ka dhaca ee ay maxkamaddu soo saarto ee qof la ganaaxo waa in systemka laga arki kara hay-adaha kala duwan ee dalka oo dhan ama kuwa maaliyadeed ha noqoto ama kuwa kale ha noqoto waxa weeye qofka eedaysanaha ah meesha ay hawshiisu ka soo bilaabmaysaa waxa weeye waa halkan waa hay-adda dambi baadhista Soomaaliyeed hay-adda dambi baadhista Soomaaliyeed marka haddii aanay lahayn awoodii iyo xirfadii iyo kartidii ay ku samayn lahayd baadhitaan hufan oo dhammaystiran oo sharciga waafaqsan waa adag tahay in la gaadho cadaaladda la raadinayo waayo xafiiska xeeladaha guud oo hagitaanka hay-adda waaxda dambi baadhista leh ma heli karo gungaadh dhammaystiran oo sharciga waafaqsan kaa haddii aanu helinna ma keeni karo maxkamadda case dhisan oo dhammaystiran maxkamaddu haddii aynay taa helinna ma gaadhi karto cadaaladda laga filayo waxayna u badan tahay inuu dambiiluhuna baxsado dambilaawuhuna xabsiga galo ayay keeni kartaa shaqo gudasho la-aan ka timaado ciidanka waaxda dambi baadhista ee booliska Soomaaliyeed waaxdaasi markaa keligeed ma gudan karto hawsha waxay u baahan tahay imkaaniyaad badan waxay u baahan tahay taageero dhaqaale waxay u baahan tahay taageero dad waxay u baahan tahay tababar waxay u baahan tahay agab iyo qalab lagu xoojiyo oo lagu hubeeyo maanta waxay nagu soo kordhay waxaan dhaqanka Soomaaliyeed ka mid ahaan jirin meel aan ka soo gelin waxaanu maalin walba maqlaynaa wiil yar baa la kubsaday iyo inan yar baa la kubsaday wax runtii dhaqanka Soomaaliyeed kuma jirin inaan la faraxumeeyana waxay ahaan jirtay waxyaabaha la isku dilo laakiin hadda waxay noqotay wax iska caadi marka arrintan waxaynu u baahanay in meel looga soo wada jeesto oo si dhab ah loola dagaalamo hay-adaha ay khusayso oo dhan iska kaashadaan arrimahaasi looga hortago waxay kow ah in laga hortago oo lala dagaalamo maandooriyuhu waxa weeye waxyaabaha sahlaya dunuubta aynu ka warramaynaa inay dhacaan marka haddii ay noqoto meelaha furdooyinka iyo riboodhada iyo meel kasta oo wax ka soo galaan in la isku dayo in la kaantaroolo in dalka daroogo aanay soo gelin waxaa iyaduna lagama maarmaana in lala yimaado qorshe habka hoteelada loo dego hoteeladeenna hadda kaliya waxaad u baahan tahay inaad lacagta bixisa inaad hoteel degto waxa kaloo ma baahan waxaynu u baahannahay markaas hoteelada ceeb ka weyni ma jirto hoteeladeena inay dembiyada aynu ka hadlaynaa ka dhacaan la yaab male inuu dembigu ka dhaca bannaanka weligeedba wax dhici jira weeye laakiin hotel xamar ku yaalla oo aynu garanayno in la yidhaha dembi noocaasa ka dhacay ceeb ka weyni ma jirto qarannimadeenna iyo dadnimadeenna iyo mas-uuliyaddu aynu hayno intaba waxay ku tahay marka yacni waxaan rabnaa hay-adda wasaaradda amniga gudaha
iyo taliska booliska Soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay iska kaashadaan hoteelada qaarka loo degay waxaa kaloo ka mid ah iyadana hoteelada yaa wada degi kara laba qof oo rag iyo dumar ah ma wada degi karaan hotel maya awaamiirta waxyaabaha u baahan in laga soo saaro taasaa ka mid labada qof ee kala jinsiga ah ee raba inay qol hotel wada degaan hotelku waa inuu weydiiyo shahaadada nikaax taa haddii aanu weydiin hotelku isaga ayaa qayb ka qaadanaya in la fidiyo fusuqa iyo in dembiyadu inay dhacaan la dhiirigeliyo marka waxaan ku dardaaraya wasaaradda amniga inay awaamiirtaa soo saaraan qofna isagoo aan dokumenti haysan oo la xaqiijin hotel inaanu degi karin isla markaana laba qof oo kala jinsiya oo aan la xaqiijin inay isqabaan inaan hotel wada degi karin marka aan ku dhiirano waxyaabaha basiirka ah inaan wax ka qabano wax badan bay markaas daweyn doonaan insha allahu tacaala xukuumadu maxkamadu runtii waxay leeyihiin darajooyin kala duwan oo lagu xaqiijiyo qofku inuu cadaalad helo qofku haddii uu darajada koowaad ka cawdo inaanu cadaalad helin ama uu arko waxa u furan in rafcaan u qaato maxkamadda darajada labaad haddana waxa u sii furan maxkamadda sare inuu qaato haddana waxa u sii furan mararka qaar dib u eegis inuu qaato marka qofka u arka ama aad ogtahay inuu cadaalad darro tabanayo kaliya wuxuu u baahan yahay inuu maxkamadda sare u soo qaato dib u eegis haddii uu xukunkiisu dhaqan galay maxkamadda sarena runtii waa u taagan tahay inay xaqiijiso dadka tabanaya cadaaladdu inay cadaalad helaan